السلام عليكم ورحمة الله ولاashii nafsi abtidoon maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago update-ka ugu dambeeyay ee shirkadda Ombasif haddii ilaha yiraahdo soo dhawaada galabta sidaad ogtihiinba barnaamijkii 360ga oo maxaa la yiraahdaa shirkadda Ombasif saddexda nin oo ugu sarreysa xagga wax soo gudbinta Red iyo Marty iyo Chris ayaa maanta waxay ma aragtay qabteen 360ga barnaamijkii arbaco walba la qaban jiray Ombasif 360 barnaamijkaas waxay uga hadleen qodobo wiigii lasoo dhaafay oo dhan updatekiisii waxyaalihii dhacay ayaa ma aragtay la dul maray laakiin muhiimiyaadkii kasoo baxay ayaa rabaa insha allahu tacaala in aan idinla wadaago waxa ugu horeeya oo ay ka hadleen waxa weeyaan xagga paymentiga ama lacagaha sidaad ogtihiinba Ombasif maxaa la yiraahdaa kowdii bisha September ayay ma aragtay bilowday in ay gado productyaasheeda si live ama commercial ah marka waxa lagu gadanayay ilaa 8 method ama 8 qaybood oo kala duwan ayaa ma aragtay budgetka oo connect ama iibsashada oo connect lagu sameysanayay laakiin xoogaa lacagii xagga caqabad waxay ka timid kaararka oo maaragtay internationalka ahaa marka xoogaa bowsa la geliyay ama waa la joojiyay wax yar inta maaragtay la clear gareynayo lacagii hore oo systemka xoogaa ku jam noqday maadaama millions lacag dad aad u fara badan oo boqolaal kun ah ay maaragtay daqiiqad walba Ombasif ay maaragtay payment sameynayaan mid la baxayaan mid ku soo shubayaan halka xoogaa jam baa ka yimid waana la joojiyay sidaad aragtaan ecosystemkaaga haddaad gasho waxaad arkaysaa in maxaa la yiraahdaa qaybtii mob laga saaray la boosgari ama laga qariyay qaybtii kaarka si aadan ugu khaldamin marka maxaa jira kriptada xoog bay u shaqeynaysaa kripto paymentiga ilaa iyo 3 nooc baa ku jira laakiin nooca ay nimankan leaderska recommend gareeyeen waxa weeyaan TRC20ga oo ah maaragtay paymentiga ugu faasisan ama ugu fiican marka insha Allah tacaala adinkuna waxaan jecelahay inaad kaas isticmaashaan waxa kale oo ay ka hadleen withdrawalka macnaha lacagaha la bixidooda Ombasif already shirkad 6 maalmood suuqa joogtay oo faa'iidadii laga helay lala baxaayo shirkadan ka hor weligay maanan arag alxamdulillah waxay leeyihiin withdrawalka waa macnaha in lacag lala baxo waa diyaar waa lala bixi karaa $100 iyo wixii ka badan ayaad la bixi kartaa marka ay lacagtaadu gaadho haddii waxa kugu jira walletkaaga ay $100 ka badan yihiin ama $100 iyo wixii ka badan direct ayaad la bixi kartaa laakiin xusuusnow waxaa laga jaranayaa car charge-ka $20 ayaa laga jaranaya lacagtu ama ha badnaato ama ha yaraato marka advice dadka waxaan ku siinaynaa dhaqaale yar intaad la bixi lahayd wixii 1000 iyo wixii ka badan haddaad la bixaysid oo maxaa la yiraahdaa $20 laga goosto ma dareemaysid laakiin lacag yar oo $100 200 haddaad la baxdid $20 oo car charge-na lagu charge gareeyo waxa faa'iido kuguma jirto marka waxaan ku talinaynaa inaad iska yara sugto insha Allah tacaala haddii kalena waa xaq baad u leedahay in la bixi kartid lacagta la bixideeda maaragtay international paymentiga waqti buu qaadanayaa laakiin haddaad kripto kula baxaysid waa saacado kooban oo ma aragtay aad qaybtaas isticmaalaysid maxaa la kriptada adduunka haddaad isticmaalaysid maalin saacado yar bay qaadanaysaa laakiin bangi international transfer haddaad samayso 10 ilaa iyo 15 beri ayuu qaadanayaa marka dadka kumay advice gareynaynin in kaar la isticmaalo la bixideeda inkastoo hadda kaarkiiba meesha uunan shaqaynaynin kriptada kula bax ayada ayaa kaaga habboon laakiinse talo waxaan ku bixinaynaa inaad sugto sidoo kaleeto maaragtay dadkii maaragtay double inaad macnaha double check ku samaysid oo aad si fiican isaga eegto lacagta markaad bixinaysid kriptada walletka maxaa la addresskiisa aad iska eegto wax walba iska check garaysa ayay aad noogu waaninayeen sidoo kale waxay ka hadlayeen CEO-geena ama shirkadda maxaa la yiraahdaa ninka shirkadda Ombasif CEO-ga anaga noo ah ama maamulka noo ah waxa weeyaan shirkaddan ay ka soo aasantay Ashmo Farax inuu qaban doono kulan asbuucan haddii ilaahay yiraahdo update-kana waxaa lagu soo dhigi doonaa xagga back office-ka ee isha ku hay biidnillahi tacaala waxaa kale oo ay nimankaas ka hadleen in maxaa la yiraahdaa dhinacanay toole ma aragtay waxay ka sheekeynayaan waxyaalaha oo maaragtay aan ahayn public looga hadlo dabcan iyagu way uga hadleen annagoon ka hadlayaa
waxa weeyaan dhaqaalaha ombasif qaabka kuu soo gelayo siyaalaha maaragtay kuu soo gelayo waxay ku qoran meeshaas in sidoo kaleeto o verified uu si degdega noogu imaanayo oo asbuucaanba la rajaynayo o verified waxa weeyaan kan KYC-ga oon sharciyada ku cadaynayno qofka aan nahay si ganacsigeenu uu u suuq tago sidoo kaleeto waxay halkan kaga hadleen in ma aragtay agreementi aan saxiixi doono mar dhow oo connecti agreement aan saxiixaynaa jirta oo waxa weeyaan si shirkadu inoogu suuq geyso oo waxa weeyaan aan maaragtay u noqono dad ganacsato ah waa inaan saxiixnaa heshiis kale oo connectiga kaliya ku saabsan waagi hore dad xasuusatiin NDA-gi aan soo saxiixnay wuxuu ahaa only ecosystemka shirkadda inaad soo gasho wax ka gadan kadib barodkeeda aad isticmaali kadib laakiin kan suuqgeynta commissionadii baa ku qoran commissiona weliba kala duwan aad iyo aad u kala duwan baa ku qoran waxa weeyaan waxyaala aad u fara badan baa kuugu qoran marka kaas ayay waxay dhaheen asbuucan haddii ilaahay idmo waxaan saxiixi doonaa o connect agreement iyo o verified oo ah kii sharciyada aan ku cadaynaynay kadibna maaragtay meetingkaas ayuu CEO-geena qaabka wuxuu dhacayaa noogu sheegi doonaa inta badanna webinarada waaweyn oo corporate-ka ombasif waxaa la qabtaa maalinta jimcada ama maalinta sabtida ah kolaba weekendiga iyo ama jimcada ama sabtida ayaa normally la qaban jiray sidoo kaleeto waxaad aragteen maalinta berito ah burj khalifa in xayisiis badan oo waxa weeyaan marketingkii ombasif uu ka socdo